بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaashaan jecelnahay kusoo dhowaada barnaamijka sharxitaanka maadada fisikska ee fasalka form 2 ee aan ku guda jirnay chapterkii koowaad ee la magac baxay measurement 2. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe garee, inoo share garee, like iyo commentigana hanaga ilaawin. mahadsanid. waxaad ka daawanaysaana waa MK channel, soo gudbiyuhuga ustaad memory. waxaynu ka maraynaa waa cashirkii aan ugu talgalnay chapterka 1 inaan kusoo gabagabeeyno cashirka maanta. mar hore waxaanu ku guda jirnay measuring instrument, qalabyada wax lagu cabira qayb ka mid ayaan soo qaadanay. maantana waxaynu qaadan doonaa measurement error, qaladaadka cabiraada ama errorka measurementiga. markaan rabno inaanu qeexno measurement error, waxaynu ku qeexi karnaa qaabkan soo socda. measurement errorka is defined as waxaa lagu qeexi karaa the difference between farqiga u dhaxeeya the true or actual value, qiimaha saxda ah ama saxiixa ah, and the measured value ee qiimaha la cabiray. qaladka measurementiga waa farqiga u dhaxeeya qiimihii saxda ah ee shayga la cabirayo, qiimihiisa saxda ah ee actualka ah, iyo qiimaha shayga markii la cabiro ama qalab loo adeegsaday in lagu cabiro qiimaha soo baxaya. farqiga u dhaxeeya ayaa waxaa loo yaqaanaa measurement error. masalan, shaygan dhirirkiisa ama haydkiisa ayaa ah 20 centimeter, haddii aan cabirnana waxay noqotay 19 centimeter. farqiga u dhaxeeya labada cabir ee actual value-ga iyo measured value-ga ayaa ah measurement error ayaa loo yaqaanaa. haddaba errorka muxuu ku dhici karaa? qaladka muxuu ku dhici karaa? in cabirka uu qaldamo maxaa sabab u noqon karaa? The error may occur due to errorka ama qaladka wuxuu ku dhici karaa sida tan ama u sabab ah negligence or inexperience of the person. negligence yacni in dayacaad ay jirto, yacni wax markii la cabirayo meesha aynan si suuragal aan loo cabiraynin ama si rasmi aan loo cabiraynin ee ay jirto marka dayacaad, or inexperience of the person ama khibrad la-aan ay qofka haysa oo kale inuu jiro oo cabirkaas sidaa ku qaldami karaa. qofka isagoon khibrad lahayn oo wax cabiraad loo diro si qaldan u cabiro, iyadana waxay soo saari kartaa marka error of measurement. faulty apparatus, qalabkii oo xumaaday ama qalabkii oo aan fiicnayn oo faulty ah marka, ama waxay sababi kartaa marka inay error sameyso. errorku waxaa ku sameysmi karaa ama ay ku dhici kartaa in dayacaad iyo khibrad la-aan qofka haysa, ama qalabyada oo faulty noqda ama xumaada ama aan fiicnayn, iyo incorrect method, iyo hanaanka ama habkii loo marayay in lagu cabiro shayga oo incorrect ah oo qaldan, or technique of measure, ama habka loo cabirayo shayga ama hanaanka ama nidaamka loo cabirayo incorrect inay qaldan tahay oo aynan saxnaynba. limitations of the measuring instrument, iyo xadadaha qalabyada wax lagu cabiro. qalab waliba yacni xadado wuxuu leeyahay inta ugu badan uu cabiri karo iyo inta ugu yar uu cabiri karo. inta ugu badan wixii sii dhaafaa isoon cabiri karin, haddii lagu cabiro qaladaad kale ayaa imaanaya. error markaas way dhici kartaa. wax yar oo ka yar intuu cabirayo wax ka yar haddii lagu cabirayana sidoo kale errorku way imaanaysaa. limitation of measuring instrument, marka xadadaha qalabyada wax lagu cabiro. tusaale, roodka birta wax lagu cabiro ama masalada ahaato cannot be measured ama cannot measure, laguma cabiri karo a length less than 1 millimeter. less than 1 millimeter, dhirirka yar 1 millimeter ma cabiri karo yacni roodka. hadda roodku cannot be measured ama cannot measure ma cabiri karo a length less than 1 millimeter, wax 1 millimeter ka yar ma cabiri karo. waayahay, types ayuu leeyahay wax loo yaqaano measurement errorka.
types of error in measurement markii cabiraad laga hadlayo errorka meeqa nooc ayaa loo qeybiyaa and there are two major waxa ugu weyn laba nooc ugu weyn nooc kale oo arki kartaa oo mid saddexaad jira laakiin waxa ugu weyn oo major ah two types laba nooc ayaa ugu weyn oo error measurement mid loo yaqaan random error iyo mid loo yaqaan systematic error midka random error iyo systematic error muxuu yahay random error waa yani qalad ashwaaci ah oo aan xulasho lahayn oo yani aan isxigxigin laakiin systematic waxay tahay waa qalad yani isxigxiga tirahaan oo systemi ah ama systematically ah random error is said to occur waxaan dhihi karnaa wuxuu ku dhacayaa when repeated measurement markii aan cabiraadaha ku celcelino cabiraadaha soo loo adeegsanaa marka physical quantity xadiga physicality tao give nasiinaysa marka different value under the same condition yani cabiraadaha inaan ku celcelino physical quantity shayga la cabira physical quantity waxaan hore waxa soo sheegnay formanka ku soo sheegnay waa is a quantity that can be measured يعني وقوانتي أما حد اللي يعني العبر كرو أي حد هنقطع عفكي أي حد أو تايم كي وحلا ملا النسينا اسمها different value قيمة يعني كلد وانو under the same condition سلا حالات دي سلا هذه أي واحد نوصي نسمى different value قيمة كلد وان أي نوصي نسمى عندما يركو عودي أكرا يعني مركي عبر هذا اللغة العيو halka xadiga physicality ay nasiinaysa marka different value under the same condition randomka is due to some unknown causes randomku waxa sabab waa yani sababooyin aan la aqoon unknown ah oo xad ileen cabirkan oo qalabkaada haysato hadda ayaa wada wax ku cabirtay shay tira ku soo baxay isla sheegay hadan mar labaad ku celisay tira ka duuna ku soo baxday hadan oo aan isku xigin waliba oo yani marna laba u dhaxaysa mar hal u dhaxaysa mar saddex u dhaxaysa mar boontiyaal u dhaxaysa sidaa ku soo baxay waana kala duwan yihiin marar jeer waa aad cabirtay soo marka qaladka noocaas oo kala ayaa waxa loo yaqaanaa random error tusaale ahaan ama example suppose kaba soo qaad you measure waxaad cabirtay the mass of the ring cufraanta ayaa cabirtay 3 times using iyadoo la isticmaalayo the same balance isku mid ah qalabkii wax lagu cabirayay dheelitirka ah and get slightly different values waxaan heshay qiimo kala duwan aad heshay 15.45 gram 15.41 gram and 15.43 gram hadda waxaan fiirin labadan markaad fiiriso farqiga u dhaxeeyo waxay noqonaysaa 0.04 waay haddana labadan markaad fiiriso 0.02 oo kala duwanaashihii waa mid ashwaaci marna boontiya kala u dhaxaysa marna boontiya yani wax isku xigana ma ahan so that's waxaan dhihi karaa marka waa random error dhihi karnaa oo waa error ashwaaci ah waayahay mar haddii ay sidaa ay tahay maxaa reason u ah random errorku reasons of random errorka ujeedada ama sababaha random errorku these changes may occur isbedeladani yani markii aad wax cabirto wax badan aad cabirto isbedelada timeka ama isbedelada volume value ku yimaada waxa yani ku jira marka qulub leh measurement instrument qalabyada wax lagu cabiro or in the environmental condition iyo deegaanka xaaladihiisa deegaanka uu isbedeli karaa jawiga sidoo kale wixii la mid ah so may occur way ku dhici kartaa oo randomkaas reason ay u noqdaan oo ah measuring instrument and environmental condition okay maadaama randomku uu yahay error jira yahay maadaama error jira yahay sidee ku baabi'in karnaa mar hadda baabi'in karinne sidee ku yareyn karnaa how can we reduce random error sideen ku yareyn karnaa marka random errorka and the effect of random error can be reduced by repeating of measurement several times and taking their average affectiga uu leeyahay random errorka waxaa lagu yareyn karaa iyadoo lagu celcelinayo measurementiga marar badan iyadoo lagu celcelinayo measurementiga marar badan lagu celcelinaa kadib markaa ku celceliso marar jeer markaa ku celceliso waxaad ka qaadanaysaa markaa their average celceliskooda ayaad ka qaadanaysaa so sidaasaan ku yareyn karnaa maxaanane sida ku yareyn karnaa random errorka in yani cabraadaha aan ku celcelino kadibna aan ka qaadano functionkooda ama averagekooda systematic error
haddaba systematic error muxuu yahay when there is systematic or consistency difference in repeated measurement of the physical quantity we say that error is systematic markii systematic jira aan dhahayno ama kala duwanaansho isxigxiga oo consistency ah oo markii lagu celiyo repeated measurement markii lagu celiyo cabbiraadaha lagu cabirayo physical quantity-ga we say waxaanu dhahaynaa that error kaasi is systematic waa mid systematic ah marka systematic uu jiro ama kala duwanaansho isxigxiga uu jiro markii shaygaasha cabbiraadooda lagu celiyo waxaan dhahaynaa error kaasi waa systematic error reasonka haddaba maxaa sababa reasonkiisa okay waxaan leenahay marka systematic error occur due to due to maxay tahay waa saddexdaa shay zero error in measurement in macnaha measuring instrument qalabka measuringka inuu yahay qalad ever ama zero error inuu jiro ama poor calibration of the instrument qalabka hagaajintiisa liidata incorrect calibration of the measuring instrument iyo qalabka wax lagu cabirayo hagaajintiisa aan saxnayn inuu zero error jiro ama qalabka hagaajintiisa liidata ama qalabka wax lagu cabirayo hagaajintiisa aan saxnayn yani zero error ka hadan ka hadli doono insha Allah poor calibration qalabka oo liidata yani qalabkii waxa ku cabiro lahayd qaabka uu hagaajinaysa oo liidata ama si qaldan yani qalabka loo hagaajiyo oo yani si qaldan loo xirxiro marka si qaldan loo xirxirana mar meeshaas hadee qalad ku bilaawato qalad leh ku dhamaanaysaa oo error ay ku soo saaraysaa qiimihii marka reasons of systematic error saddexda ayaa u waaweyn ayaa sabaysa waxaan leenahay marka brief explanation of zero error of final caliber zero error ka ayaan rabnaa inaa yani wax yar kooban inaan ka bixino ama sharaxaad kooban ka bixino oo waliba anaga ku dabaqeena final caliber final caliber wuxuu leeyahay jaws oo lahaa oo ah fixed jaw and sliding jaws xadidnaa ama daaminka xadidnaa oo meel ku xadnaayeen aan dhaqaaqin sliding jaw iyo daaminki oo dhaqaaqay so when the jaws are closed markii daaminka jaws ka are closed la xiro the final zero mark coincides with the zero mark on its fixed main scale yani zero mark waxay tusinaysaa marka zero mark oo ay fixed ku tahay main scale-ka final scale-ka zero mark ayuu lahaa main scale-ka zero mark ayuu lahaa labada zero mark marka dhaqaaqidooda iyo yani isku beegneen ama ay ku beegan tahay zero mark with the fixed main scale-ka ku beegmato taa waxaan leenahay marka zero error ma jiro laakiin markaysan isku beegmin xaalado kale ay kala jiri doonaan xaaladan waa kala doona insha Allah before taking any reading intaan la aqrinin ama la qaadan aqrinta it is good practice to close the jaws waa in waxa wanaagsan in la xiro jawska or faceska of the instrument ama wajiyada qalabka jawska la weeyaan to make sure si loo hubiyo the reading is zero in readingku uu zero yahay if it's not iyo hadiisan ahaynba then note waa inaad qortaa marka ama aad ogaataa the reading akhrinta this reading kan ama akhrintan oo kale iska waxa laga qana zero error okay final caliber ka aan ku dabaqnaa mar in case of lacala hadii final caliber it occurs when it occurs ka dhacdo when a zero on main scale there's no coincide ku beegmin with zero on final scale main scale-ku tirada main scale-ka dhinaca ah ee cabirkeenu qaadanaynay tiradiisa oo zero-geeda iyo final scale-ka zero haddaysan isku beegmin final caliber-kan ka hadlaynaaye zero error jira haddaysan isku beegmin marka zero error ka jiro ma positive is one negative that we need to understand inshallah okay مثلا sawirkan nala fiiri zero of main scale-ka waa ka iyo zero of final scale-ka waa ka hadda waa isku beegan yihiin maxaa la marka waa no zero error mar hadda isku beegan yihiin wax zero error ah jira ma leh okay mid labaad positive error goorman dhahnay positive error waxaan nahay markii main scale-ku zero-geeda ee bidix ka jirto final scale-ka zero-giisa si kale haddii aan dhahno final scale-ka zero-giisa markay midig ka jirto main scale zero-giisa markaas waxaan leenahay marka
waa positive error, waa zero positive error, zero positive error. Okay, negative errorka waxaan leenahay markii main scale-ka uu midig kaga soo jiro zero-ga final scale-ka. Si kale haddii aan u dhahnana final scale-ka zero-giisa marka uu bidix ka jiro main scale-ka zero-giisa, daas waxaan dhihi karaa marka waa zero error. Zero errorka labadan haba ku dhici karaa oo kaliya haddii aysan isku beegnayn zero-giiska oo main scale-ka zero iyo final scale-ka zero-giisa marka wax cabirayso marka jawaabka ay xirto labada haddaysan isku beegnayn oo not coincides ama coincides ay ahayn, waxay leedahay marka meeshaas waxaa jira zero error. Positive inuu yahay negative inuu yahayna waad kala fahmi kartaa. waayahay waxaa jira marka how can we reduce systematic error. Mar haddii how can we reduce random error soo ogaanay, how can we reduce marka systematic error. waxaan ku yareyn karnaa, sidee ku yareyn karnaa systematic error? Compare the instrument with another instrument which is known to be more accurate. يعني compare in la bardhigaa instrument qalab with another instrument qalabkii aan yani wax qaladaadka noo soo saarayay in la barbardhigno qalab kale oo asiga la mid ah laakiin la og yahay which is now la og yahay to be more accurate, inuu saxnaantiisu aad u badan tahay, haddii qalabkii naga haleysnaa aan haddana mid kale oo haleysan oo isaga ka daran aan keeno kulli qalad kasii darana imaanaya. So marka qalabka mid oo yani ka saxnaan badan oo la og yahay in lala bardhigo kadib haddii qalad imaado iyo haddaysan imaadana markaasna go-aankeeda idinka leh. Okay, apply correction factor to all reading taken on the instrument. Inaad sameyso marka correction factor-ka sameynta saxitaanka to all reading dhammaan aqrinta oo laga qaadayo taken on this instrument. Aqrinta laga qaadayo qalabka inaad ku sameyso marka correction factor in lagu sameeyo. iyo mid saddexaad oo ah high accurate measuring instrument are needed. qalab cabiraad saxnaantiisa aad u sareysa loo baahan yahay. yani meesha waxaa ku qarsan consider buying a new one, wax cusub gado, mid cusub soo gado. yani midkan waa duug, qaladaadkiisa waa badan yahay, soo marka maadaama uu qaladaadkiisa badan yahayna waxaa laga yaabaa in yani ka jiraan mid kale oo kasii heer sareeya oo ileen technology-ga iyo waxyaabaha qalabkaba sanadba sanad kasii dambeysa way sii horumarayaan oo development ayaa lagu sameynayaa. So marka consider buying new ones, mid kale soo gado si haddii aad u baahan tahay high accurate measuring instrument, qalab saxnaantiisa aad u sareysa ama qalabyada waxaa ku cabiraysa saxnaantiisa aad u sareysa haddaad rabto waa inaad soo gadataa mid cusub oo aanan kii hore ahayn. sidaa ayaan ku yareyn karnaa systematic error. fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe garee, inoo sheeg garee adigoo gujinaya gambaleelka. haddii su-aal iyo cabasho ay jirto insha allah igala soo xiriira ciwaanada hoos idinku xariiqana ama shaashada idin fuulaba. insha allah hadduu alidma waxaan rajeyn doonaa chapter 2 inaan si degdeg aan ku bilaabno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.